midowga musharaxiinta ee mucaaradka ayaa dalab ay u direen madaxda maamul goboleedka qaarkood ayaa ka qaatay mowqif adag. Mucaaradka dib ayay u guurteen tallaabooyinkoodii waaweynaa sida dhismaha gole kumeel gaara, doorasho isgarab socota ama ciidan. Waxaan hore iskugu sheegnay inay soo saari doonaan qoraal ay ku dalbanayaan in lagu saxo doorashada si ay uga qayb galaan, sidaas ayna sameeyeen. Qoraalka mucaaradka soo daayeen wuxuu xambaarsanaa 7 arrimood oo koow ka tahay joojinta doorashada. Mucaaradku waxay mar kale ku celiyeen in la hakiyo doorashada socoto oo la isku yimaado shir lagu saxayo qaladaadka jira guud ahaanba. Xogahan helena waxay sheegeen Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble uu raali ka yahay shirka noocaasa, balse madaxda maamul goboleedka qaar ayaa diidan shirkaasi. Waxaa jira walaac ku saabsan qabsoomidda shirkaas, iyadoona qorqor iyo lafta garan la sheegay in aysan shirkaasi xiisanaynin guud ahaanba. Laba habraaca mucaaradku waxay qoraalkooda ku dalbadeen in la turxaan bixiyo. Habraaca si gaar ah waxay u dul istaageen habka loo marayo xulista odayaasha, qorista ergada iyo faafintooda. Waxay kaloo farta ku fiiqeen wacdaad samaynta musharaxiinta u tartamaysa kuraasta xildhibaanada iyo bixinta warqadda ogolaanshaha tartamaha. Mucaaradku xilli hore ayay dood ka qabeen habraaca, jawaab fiican lagama siinin. Saciidan ayaa mar loo xilsaaray inuu mucaaradka kala doodo habraacani awoodda badan siiyey madaxda maamulada, laakiin iyadoo aan mucaaradka taasi laga qancin ayay halkeedii looga dhaqaaqay. Habraacan hadda la isticmaalayo wuxuu awood badan siinayaa madaxda maamulada, mana rabaan hogaamiyaasha gobolada in wax laga bedelo maadaama ay faa'iido badan ku qabaan. Sida ay ku aqbali doonaan in la soo habraacani ayaase loogeen. 3 fasiraada tartamaha labaad ama malxiis. Mucaaradku waxay diideen kursi qof loo xiriyo ama kuwa loo sameynayo malxiis la sii ogyahay inuusan tartamo ahayn. Dhacdadan ayaa mucaaradka farta ku fiiqeen waa midda xiisaha ka qaaday doorashada hadda socoto, maadaama la sii ogyahay kursiga walba cidda ku soo baxaysa. Madaxda maamulada waxaa ku jira damac xoogan oo ku aadan doorashada federaalka. Waxay qaarkood rabaan inay madaxweyne u tartamaan, mid waxaa ku jira damac gudoomiye baarlamaan, qaarna waxay doonayaanba inay musharaxiin u dhistaan xilka madaxweynaha. Saas darteedna ma rabaan tartan furan in guud ahaan bay ka dhacdo Soomaaliya. Waxay doonayaan oo kaliya dad ay kuraasta soo siiyeen oo ay beri ku abaal sheegtaan, lamana yaqaan sida ay qodobkan ay ku aqbali doonaan isagana. 4 korjoogto. Mucaaradku waxay soo jeediyeen in korjoogto Soomaaliya ajnabi ah loo sameeyo doorashada socoto, iyadoo sidoo kale ay ka qayb galayso saxaafadda madaxa bannaan. Qodobkan waxaa macquul ah in la isla qaadan karo guud ahaanba. 5 kuraastii la boobay. Midowga musharaxiinta mucaaradku waxay soo jeediyeen in lagu laabto doorashada kuraastii la boobay. Dhowaan 2 kursi ayuu doorashadoodii diiday guddiga doorashada heer federaal, laakiin weli dhinaca koonfur galbeed lagama aqbalin in lagu laabto kuraastaasi. Galmudug iyadana 1 kursi ayaa looga dhegan yahay. Madaxda maamulada qaar waxay ku doodeen in haddii ay bilaabato ku laabashada kuraas inaan la maareyn karin beri oo ay dhici doonto in kuraas badan lagu noqdo guud ahaanba. Qodobkan waa mid culus oo dano badan oo isdiidan ay dul saaran yihiin. 6 argoorsi siyaasadeed. Mucaaradku waxay taabteen meel ay dhammaad dhibsan doonaan madaxda maamulada, waana in la caddeeyo kuraasta noqonaysa qoondada dumarka si loo saaro meesha in siyaasi la beegsanayo kursigiisana laga dhigo koonto dumar ama mid ay dumar u xilsaaranta oo keliya. Madaxda maamuladu waxaa la sheegayaa inay miiska u saaran yihiin xubnaha ay rabaan inay kuraastooda dumar ka dhigaan si ay u bixiyaan. Qodobkani ma soo dhaweyn doonaan madaxda maamulada ayaa la yiri. 7 jadwal cusub. Xubnaha mucaaradku waxay soo jeedineen marka arrimahaasi la xaliyo kadib la sameeyo jadwal cusub oo doorasho oo la garanayo xilliga uu bilaabanayo iyo xilliga uu dhammaan doonaba. Tani way ka dhigan tahay in doorashadu mar kale dib u soo dhici doonto, isla markaasna waqtiga uu sii dheeraan karo. Marka lasoo koobo, fariinta mucaaradku waxay u muuqataa niman ku heshiin waayey mowqifkoodii ama koowaad, kadibna raadsaday dariiq ay ku baxsadaan oo ay shirka ku soo gunaanadaan. Waxaana la isweydiinayaa waxa xigi doona haddii warqadooda loo joojin waayo.